godka qofka kaligiisa ku jiro godkaas gurigiisa ku jira haddii janno lagu jiro waa lagu wada jiraa haddii naar ay dadku ku jiraan waa lagu wada jiraa maxaa ka dambeeya haddii mucadab uu yahay qof la haysto oo la cadaabayo hadduu yahayna isagaa toos u dareemaya qaraarka uu leeyahay cadaabka iyo xanuunka cadaabka uu leeyahay toos u dareemaya ilaa wax la joogo ma laha nooc oo loo cadaabay isaga u baa dareensan wax wehelihayo cadaabkaas ku wehelihaayna mala kaligiisa godku ku jiro mana awoodi karo xataa in dad uu la xiriiro غير qof inuu la xiriiro xataa ma awoodi karo sida adduunka oo kale ma aha hadda qolka adiga ku jirto kaligaada ku jirto dhibaato haday kugu qabsato waa soo ordi kartaa waa soo jibi kartaa telefoonad diri kartaa kan ma aha godka saa u gashi leeyahay dib walba kugu haysto qof ma la xiriiri kartid dhibaatadaas uu leeyahay waxaynu ku bilaabanaysaa saad ogtihiin marxalada oo qabriga wuxuu ku bilaabaha dhammo ku bilaab majiijin isku xiriirin oo qofka lagu xiriirihaayo qof walbana waa mara waa arin caam ah waa ilaahay u xukumay qof walba qabri la geli qabri xabadkiisa iyo feerihiisa ilaa feerihiisa uu isdhaafo ayaa lagu majiijihaa kaligiis xanuunku uu leeyahay waa dareemi kartaa laba darbi oo saal isu ka riixay ilaa feerihaaga ay isdhaafaan xanuunku uu leeyahay waa dareemi kartaa وقاونا 10 مبشرين بالجنة كجرا عثمان بن عفان إن كاد أكتيه وي وسدحاد أو نبي جعلي هاي أنت أدوك جوكتو رضي الله عنه وحجري نبي عن مخلي سيقول هاي ما رأيت منظرا وحلا دوره والله فيني ولي ما أركين بيري إلا والله فيني قبرك كفول حن وكإن حن asagoo dhahayaan maqlay taasa igu can buu yiri ina marka qabri arko ama la sheego ina isxumeeyo oo yiri taasa igu waa manzar oo la fiirin kari weey sidaad ogtihiin